dowladda Isotaga Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday inay ka baxayso mid ka mid ah heshiisyada militari ee ugu weyn ay la gashay dowladda Mareykanka. Heshiiskaasi oo dhaqaale badan dowladda Mareykanka ay kaga heli lahayd iibinta diyaaradihiisa dagaalka iyo kuwa aanan dowliyaha lahayn oo marar badan dowladda Imaaraadka Carabta ay baadigoob ugu jirtay. sida uu daabacay wargeyska Wall Street Journal, Imaaraadka Carabta ayaa Mareykanka ugu hanjabay inay ka baxayaan heshiiskaasi uu ku kacayo 23 bilyan oo doolarka Mareykanka, kaasoo ay ku iibsan lahaayeen diyaaradaha dagaalka ee casriga ee Mareykanka uu farsameeyo, gaar ahaan nooca loo yaqaan F-35 oo dunida ay baadigoobka ugu jirtay iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee noocooda loo yaqaan Reaper iyo qalab kale oo casri ah. Haddaba maxaa ku qasbaya Imaaraadka Carabta inay heshiiskaasi ay ka baxaan? waxyaabaha ugu waaweyn ee Imaaraadka Carabta ku qasbaya ka bixitaanka heshiiskani waxaa ka mid ah shuruudaha adag ee dowladda Mareykanka. Xitaa haddii diyaaradahani ay iibsadaan Imaaraadka Carabta, waxayna dib u qiimeeyeen Imaaraadka Carabta shuruudaha dhanka farsamada hubkaasi iyo diyaaradaha dagaalka, xadidaadda howlgallada diyaaradahani loo adeegsan karo oo aysan u madax bannaaneen Imaaraadka Carabta, iyo inay dib u falanqayn ay ku sameeyeen dhaqaalaha kaga baxaya iibinta hubkan iyo faa'iidada ka soo galaysa Imaaraadka Carabta, taasi oo markii ay isku dhufsadeen sababtay inay ku dhawaaqaan in heshiiskani ay ka baxayaan. dadka falanqeeya arrimaha hubka waxay aaminsan yihiin in Imaaraadka Carabta uu dib u kaga fakiray isla markaana uu isku qiimeeyay diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska oo ka qiimo hooseeya kuwa Mareykanka iyo hubka iyo diyaaradaha uu ka heli karayo dalka Turkiga oo iyagana aad u jaban. Imaaraadka Carabta oo ka mid ah xulafada aadka ugu dhow Washington ee bariga dhexe ayaa muddo dheer waxay muujinaysaa xiisaha ay u qabtay inay hesho diyaaradahan oo Mareykanka uu farsameeyo, waxaana loo ballan qaaday fursad ay ku iibsan karaan diyaaradahaasi haddii heshiis ay la galaan Israa'iil, kaasi oo dhigaya in la caadiyeeyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasi oo dhacay bishii Agoosto 2020. safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Washington waxay shaacisay inay hakin doonaan qorshaha iibinta diyaaradahaasi haddii wax natiijo ay ka soo bixi waayaan wadahadallada Pentagon-ka ee toddobaadka soo socda ay ku yeelanayaan labada dhinac. hadalkaasi markii Imaaraadka Carabta uu ka soo baxay saacado kadib waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken, waxaana uu shaaciyay inay iminka u diyaargaroobayaan sidii hubkaasi ay kaga iibin lahaayeen Imaaraadka Carabta. safarkii dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta uu ku tagay dalka Turkiga iyo heshiiskii diyaaradaha uu kaga iibsanayo Faransiiska ayaa wax weyn ka beddelay fikirka dhaqaalaha Imaaraadka kaga bixi lahaa hubkii Mareykanka ay ka soo iibsanayeen, kuwaas oo xujooyin badan ay daba socdaan. sidaani oo kale Mareykanka ayaa waayay mid ka mid ah xulafadiisii bariga dhexe oo ahaa dalka Turkiga kadib markii in muddo ay iska daba wareejiyeen xilli madaxweyne Erdogan uu ka doonayay hanaanka difaaca hawada ee Patrioticska, waxaana markii in badan la meermeeriyay kadib Erdogan uu hanaan difaaceed uu ka doontay dalka Ruushka oo iminka ay isku bahaysanayaan la dagaalanka isbahaysiga Mareykanka ee gobolka. tani markii xukuumadaha Abu Dhabi iyo Tel Aviv ay heshiiska ay ku gaareen in la caadiyeeyo xiriirkii u dhaxeeyay, waxaa la sheegay in aqalka cad uu dardar geliyay diyaaradahaasi dadaalada uu ku doonayo inuu Imaaraadka uu kaga iibiyo ay ku jiraan diyaaradaha F-35 iyo kuwa aanan duuliyaha lahayn. Mareykanka ayaa guuldarrooyin isdaba jooga muddooyinkii ugu dambeeyay kala kulmayay dhanka arrimaha dibadda. diyaaradaha F-35 ayaa istuseen inay kaga maarmi karayaan Imaaraadka Carabta diyaaradaha Faransiiska ee Rafale, halka diyaaradaha daroonka ee dalka Turkiga ay ka dhex arkeen inay ka tayo wanaagsan yihiin xilligan kuwa Mareykanka ay ka doonayaan, waxaana u dhaqaale yar hubka ay ka helayaan Faransiiska iyo Turkiga marka lala barbardhigo kuwa Mareykanka. haddaba soo la isma oran karo Imaaraadka Carabta wuxuu markaani Mareykanka ku beddelan karaa Turkiga iyo Faransiiska.